عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada lecture 3 cashirkana maanta waxaa uga hadlaynaa setting up drawing units sidee halbeegyada aad drawinadaada u isticmaali doonto sidee u saxanaysaa ayaan isla fiiri doonaa insha Allah videogan halkan waxaa noo daaran softwarekeenii AutoCAD soo marka meeshaan ugu horeedo waxaan leenahay start drawing okay kadib waxaan rabnaa marka inaan drawingka ama wax kasto aan rabno inaan screenkan aan ku sawirno cabirada iyo unitka ama halbeega u isticmaali doono si aan u saxano waxa u baahanahay inaan tagno ama aan ka fiirino menu barka marka meeshaan hadda kama muuqdo mesela wuuba ka qarsan yahay marka maxaa sameynaysaa meeshaan oo quick access toolbarka falaartaas hadda aan cursor-ka kugu tilmaamayo ayaa ku dhufanaysaa oo furaysaa meesha hoose ayaa waxaa ka dooranaysaa show menu bar okay hadda marka saa ujeedo way soo wada galeen halkaan ay soo kasoo muuqdeen soo marka ani meesha uga baahanaa waxay tahay format inaan ku dhufsado okay formadan daawanaa kadibna unities sidaan ayuu kugu soo bandhigi doonaa qaanadan ama windowgan ayaa laga saxday unitieskaada okay wada kale aan arkaynaa marka waxaa sameynaynaa iconka AutoCAD-ka ayaan furaynaa kadib waxaan dul tegaynaa meeshaan drawing utilities ay ku qoran tahay kadibna waxaan kasii dooranaynaa unities okay sidoo kale isla qaanadii oo kale ayuu ku furaya waa wadada labaad ee lagu soo saaro okay wadada saddexaad maxay tahay marka as a comment amar ahaan inaa u siiso marka maxaa qoraysaa un la qoraysaa un ka marka maxaa ku soo baxay option ku ugu horeeya dooranaya un oo unities ah sidoo kale meeshaan sidaana uga dooranaya haddii aan isla fiirino marka qaanadan waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan ka saxan karno meeshaan waxaa ku qoran length halkan waxaa ku qoran angle halkan waa length-ka waa cabir kasta oo yacni dhirirka oo kale aad ku cabiranaysid halkaana waa angle waa xagashi halkaana waa insertion scale waa scale yacni kuu bedelayo ama marka aad tusaale ahaan kan wuxuu aad kuu anfacaa markii drawing aad soo gelinaysid drawing cabir kale ku samaysan tusaale ahaan mid feet iyo inch ku samaysan oo kale aad rabtaa inaad soo geliso ama soo import gareyso markaas oo kale halkaana aad saxaysaa cabirka marka wuxuu qaadan doonaa unitka noocan ayuu qaadan doonaa sidoo kale waxa waaye drawing kale meel kale kaaga furna waxaa rabtaa inta copy soo tiraad ina halkan copy ku tiraa soo marka markasta drawingka ama projectiga markaan daaran oo aad ku shaqeynaysid ayaa uu qaadan doonaa formatkiisa iyo cabirkiisa uu qaadan doonaa soo marka meeshaan lengthka marka maxaa ku qoran typeka meeshaan waxaa ku qoran dhowr xabaa ku qoran architectural decimal engineering fractional iyo scientific maxay ku kala duwan marka architectural inta badan waxaa la isticmaalaa markii aad ku shaqeynaysid empirical units ama feet iyo inch iyo wixii lamidka ah marka isticmaalaysid ayaa lagu shaqeeyaa inta badan okay decimalkana waxaa waa metric marka isticmaalaysid tusaale ahaan SI-ga unidada standardka ah sida meter millimeter iyo centimeter wixii lamid ah okay engineeringka asna wuxuu lamid midkan engineeringka asna wuxuu ka agdhow yahay architecturalka the only difference hada fiiris precisionka waa only difference yani hadda midkan feet inch caadi u qoraa okay laakiin architecturalka muxuu u qoraa as a fraction waa qaybis waa sida ujeed soo marka soo soco fractionalkana waxaa loo isticmaalaa inta badan nambarada ama value nambarada qiimahoodu aad ku u yaryahay oo kale tusaale ahaan 1 loo qaybi 16 oo kale 1/4 oo kale waxyaalaha qiimo aad u yar oo kale marka isticmaalaysa ama la macaamilay sidoo kale ayaa la doortaa okay midkan kale scientific asagana waxaa la isticmaalaa qiimayaasha aadka u waaweyn oo kale sida tusaale ahaan marka la macaamilaysid giga iyo hectometer iyo decameter iyo waxa la midka ah ayaa asagana inta badan la isticmaalaa okay marka anaga waxa u deysanaynaa decimalkiisa ayaan u deysanaynaa okay precisionka marka isla faahno precisionka waxa waaye numberkaada markuu halkan kuugu soo qormo tusaale ahaan 10 mitir oo kale rabta inaad sawirto 10 markasta oo gawa ma imaanayso okay 10.256 oo kale rabta inaad qorto marka meeqa digit ayaa pointiga inta ka mari doonta ayuu ku saxaa si aan isku la faahno marka hal mar okay aan dhahno waxaan sawiri doonaa line-ka marka aan halkan pointiga ugu horeeyo dooro ilaa okay tusaale ahaan line aan soo doortay first pointiga ugu horeeyo ku dhufo kullee waa ku dhuftay soo marka hadda line-kaad inuu ku toosan waxyaalaha lagu raaco waxa kamid ah waxa lagu fahmo toosho kuugu ifana hadda line-kaas cagaarka fiiri markuu isiinayo waa toosan yahay okay marka maxaa rabaa marka 10 waxaan gelinaa marka cabirka meeshaan aan gelinaa 10.256 okay enter ayaan leeyahay marka okay 10ka intaas ku egaa marka waxaan sameynaa marka inaan cabiraa rabaa marka precision-kayga hadda meeqa ayuu ahaa intaan ka fiiri karnaa hadda no problem unities marka tira meeqa ku yahay afar digit waa sax
ama 4 god soo marka waxaan sameeynaa di ataabana di waa marka distance ku cabiraysa distance measurement way okay wuxuu ku leeyahay marka point ugu horeedo cabirka ka bilaabaysa iyo geli waa kan halkan waa leena ilaa end point-iga oo ah meesha u dambayso soo marka maxaa u jeedaa marka hadda ana wili kuma dhufan laakiin maxaa u jeedaa cabirka marka geey 10.2560 da asaa ku daray why because precision kaad marka soo saxanaysa qaabkaas uu ahaa hadaa laba digit ka dhigto laba digit oo ku soo kooba okay marka intaas marka door dhag ku sii hadda waa kan distance-iga oo ku siinaa 10.2560 okay marka maxaa sameeynaa marka precision keena hadda wax ka bedelina u fiirso markaan ila soco precision marka waxa ka dhiganaa 2 digit ka dhig okay na dheh hadda marka di taabo oo distance-iga cabirena first point dooro end point-igana dooro okay markaan maxaa u jeedaa marka 10.26 yani round off oo ku sameynaa wuu soo buuxina hadda I hope ina ila fahantaa ayaa rajeynaya soo marka meeshayna nagu soo celi mar kale hadda waa isla fahnay length iyo precision-ka okay dhinaca angle-ka imaano angle-ka marka meeqa qaab ama meeqa format ayaa loo isticmaali karaa qofka markii loo fiiriyo asaga baahidiisa ayaa keenida waxyaalaha in qofba uu si u qaato cabirka laakiin inta badan waxa lagu cabiraa angle-ka markii la cabirayo decimal decrease okay asaga inta badan qaadan doonaa inta badanna asaa lagu saxdaa qaabkaas ayaa la isticmaala precision-ka wuxuu la mid yahay kii halkan aan ku soo aragno kale meesha maxaa ku qoran marka box ay ku qoran tahay clockwise meesha marka waxaan rabnaa inaan isla fahanno hal shay AutoCAD-ka sida u jeedid wuxuu leeyahay wuxuu xisaabina clockwise markuu ku leeyahay waa qaabka saacadda ay u wareegto waa angle-ka yani wuxuu u baahan yahay meel reference ah tusaale ahaan hadda angle markaa sameynaysa intee ka soo kaca aniga marka angle-kayga soo wareejinayo marka by default AutoCAD wuxuu yani ku salaysan yahay angle-ka in laga soo cabirayo positive x axis yani laba axis jira sida aan ognahay okay laba axis ayaa jiro laba axis markay jiraan marka axis-na waa y axis-na waa x soo marka asaga marka wuxuu ka qoranaa dhinaca positive x yani halkaan uu ka soo xisaabinaa angle-kaada okay waa from here up to here okay marka haddii hadda meesha ku qoran tahay ku qoran tahay clockwise marka maxaa waaye clockwise maxaa kasoo horjeedo anti clockwise uu cabiraa wuxuu u yaqaanaa marka anti clockwise positive inay tahay clockwise-na inay negative tahay haddaa boxkan jeeg saarta marka sheekadu waxay noqonaysaa reverse oo ah in cagsigeeda ay noqoto yani clockwise-ka wuxuu u qaadan doonaa positive anti clockwise-kana negative ka dhiga doonaa okay waxaa ku fahmaysaa marka hadda u fiirsa meeshan direction aan leenahay marka meesha ka xisaabinaya xataa fiiri maxaa meeshan ku yaala directions ku yaal east north west iyo south soo marka maxaa jeeg saaran angle-ka inuu ka soo base-ka ama meesha reference point-iga u ah waa east-iga waa 00 halkaas ka soo kacay angle-ka halkaas laga soo xisaabin doonaa whatever angle aad soo kacdo ama aad amar ku siiso laptop ama computer-ka ama application-ka I hope in ayadana la fahmay meeshan insertion scale data saxay yani cabirada laga saxaa inta badan hadda markay decimal ku tahay it should be millimeter okay so marka drawing kasto aad soo import gareyso ama mid kasto meeshan ku soo copy gareyso waa lagu scale gareey doonaa kadibna qaabkan ayuu qaadan doonaa okay qaybtan kale lighting ahaan waa loo soo geliyaa laba option marka meesha ku taalo international iyo american asagana inta badan muhiimadaas u sii weyn hadda malaha sidiisa ayaa ku deysanaysaa okay waa qaab kale oo asagana loo soo geliyo insertion scale way laakiin kan waa intensity of line okay unit-ka halbeega marka la cabirayo kala lagu cabiraa soo marka lecture-keena maantay intaas ayaan kusoo gabagabeynayna insha Allah waxaan noo ballanaa lecture-ka kan xiga oo ah lecture 4 insha Allah